kuwani waa qaar ka mid ah casharada nolosha. Waxay ku baraysaa inaysan qofna u istaagaynin cidna. Waxaad arkaysaa saaxiibkaygiyo adigoo la noolaan kara dhammaan dadka, xitaa waxaad arkaysaa adigoo noolaan kara iyaga la'aantooda. Waxay ku baraysaa in siismada aan la dalbanin ay tahay wax weyn. Sidoo kale waxay ku baraysaa in jacaylka shaki la'aanta ahi oo dhabta ahi inuu yahay mid cajiib ah. Saaxiibtinimada aan danaysiga ahayna ay tahay mid urur sheega badan. Waxay ku baraysaa nolosha in mararka qaar ay adkaanayso nolosha ayna u baahan tahay dulqaad badan. Sidoo kale waxay ku baraysaa casharo adag si aad u noqotid mid khibrad badan ka leh nolosha. Noloshu waxay kadiskaaga dhigaysaa shakhsiyaadka qaar oo dumalayn jirtay inay ku jecel yihiin, inay daacad ku yihiin, inay ku danaynayaan, in samahaaga iyo baraarahaaga uu ka farxinayo iyaga. Haddana waxaad arkaysaa inay ku qiyaameynayaan iyagii. Noloshu waxay ku baraysaa inaysan dadka qaar ay ku jeclaanaynin, si kastoo ugu daydo inay ku jeclaadaan oodna ixtiraam iyo wanaag aad u muujiso. Sidoo kale dadka qaar ayaana ku nacaynin, si kastoo ugu muujinin ixtiraam iyo danayn joogto ah. Noloshu waxay ku baraysaa inaad ka saatid qof walba kugu dhibaya dhaqamadiisa. Sidoo kale inaad soo dhaweysatid qof walba horumar iyo horusocod leh, sababtoo ah way ku saameynayaan dhaqamadiisa qofka aad la socotid. Noloshu waxay ku baraysaa inaad si dhab ah waxaad u rabtid aadna u ogolaatid ilaad ka helayso. Haddii kale ogsoonow inuu jiro mid bixinaya qiimo iyo dadaal ka badan intaad bixisay, kadibna xaq u yeelanaya waxaad adigu doonaysay. Noloshu waxay kaa dhigaysaa mid daalan ilaa aad ka ogolaatid inaysan jirin noloshaaga wax kaaga muhiimsan raaxada laabtaada iyo qalbigaaga. Waxaan bartay in jaamacadda iskuulkaan wax ka baranno, kadibna aan imtixaan ka galno, laakiin nolosha imtixaanka ayaan galnaa kadib markaasaan wax barannaa. Waxaan bartay in hadal gaaban oo idin dhex mara qof xikmad badan ama dood yar u dhiganto bil daruusteed oo kale. Waxaan bartay in aysan muhiim ahayn maxaad hadda haysaa, laakiin ay muhiim tahay xaggee daqiiqadan kadib rabtaa inaad gaartid. Waxaan bartay in qofka u khayr badan tahay inuu ahaado diidiin ku socda dariiq toosan intuu ahaan lahaa deero ku socda dariiq khalad ah. Waxaan bartay in furaha khasaaradu uu yahay inuu qofka isku dayo inuu raaligeliyo cid kasta. Waxaan bartay in camalka wanaagsan uu aad ugu fiican yahay hadal wanaagsan oo keliya. Waxaan bartay in ay badan yihiin dadka helaa waanooyin badan, laakiin ay yar tahay inta ku dhaqantaa. Waxaan bartay in khasaaradu aysan ceeb ahayn, laakiin ay ceeb tahay inaan waxba la tijaabin. Waxaan bartay inay jiraan laba nooc oo dadka ah: dad u dabaalanaya meesha uu markabku taagan yahay, kuwa taagan oo sugaya inuu markabku iyaga xaggooda u soo dhaqaaqo. Waxaan bartay in qofka uusan hoogin haddii uu khasaaro, laakiin uu khasaaro marka uu joojiyo dadaalkiisa. Waxaan bartay in qofka guusha gaara uu yahay kan sabirka iyo dulqaadka badan. Waxaan bartay in hubka ugu weyni ee uu qofka helaa uu yahay sabirka iyo waqtiga. Waxaan bartay in ay lagama maarmaan tahay inuu qofka isku dayo inuu sameeyo camal gaarsiiyo ilaa xidigaha, laakiin uusan iloobin in lugihiisu ay dhulka joogaan. Waxaan bartay in marka aad qoslaysid uu adduunka dhammaan kula qoslaayo, laakiin markii aad ooynaysid aysan cidna kula ooynaynin. Waxaan bartay in farqi weyn u dhexeeyo tijaabinta badan iyo ka quusashada. Waxaan bartay in dareenka wanaagsan uu yahay kii naftaada ku qanacsan tahay adigoo ogsoon waxaad samaysay inay wanaag ahaayeen. Adduunka oo dhammi ha kugula ciloobee. Waxaan bartay in wax kasta oo aan aragno inay weyn yihiin oo adduunka yaala markii hore ku bilowdeen fikrad yar kana bilowdeen wax yar. Waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. Haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si ina gaarsiiyo saaxiibadaada. Haddii aad nagu cusub tahayna inagu soo biir oo rukumo channelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo gelin mar waliba. Inta aan ku kulmi doono kan iyo muuqaalkiisa xiga. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.